ayuu helay. aad buu u farxay wiilkii, waayo wuxuu helay lambar aad u wanaagsan, aad uga farxiya ayuu maanta helay. lambarkii markuu helay isla daqiiqadii buu garaacay. inantii way ka qabatay, waa la isfahmay, waa la isku faraxay, waa la isku xiisay. dib waxaa loo wada hadlay sidii laba qof oo aad iskugu soo xiisay. waa la iska dul ilmeeyey farxad awgeed. qabso jacayl dhaba ba inu dhexeeyo, dhararti timaadaba isku soo dhawaane. dhiigan ku bedelaya adna dhuuxa ila gaadhe, dhiigan ku bedelaya adna dhuuxa ila gaadhe. waayo intaas hal sano la kala maqnaa. inantu way xog wareysatay, waxay ku tiri waan ku tabay. isaguna sidoo kale wuxuu ku yiri waan ku tabay. muddo xisaab lahaado 7 la is xog wareysto. aakhir waxay inantii damacday inuu ka wareysato halka uu joogo. wiilka wuxuu sheegay inuu Jarmalka joogo. inantii 7 ayaa la wada sheekaysanay. 7ka wiilkii inantii si fiican furfurnaan bay tustay, farxad bay tustay. inanka weji waxay ka ilaalisay wax kastoo dhaawac oo soo gaari lahaa waqtiyaadkiisa. inantu way ka ilaalisay. inantu farxad bay u muujisay. wiilkii inantu way qaadatay. inantan waxay ahayd inan qurux Ilaahay ku manaystay, furfurnaan Ilaahay ku manaystay, dabeecad wanaag oo Ilaahay ku manaystay. inankii way qaadatay gebigiisiba. uu ka helay, uu xiiseeyey. daqiiqad inay ka maqnaato diidi jiray, daqiiqad inay ka maqnaato uu diidi jiray. mar walba wada hadli jireen, keliyaata waxay kala maqnaan jireen intay wax cunayaan. hurdada way isku seegi jireen. saamiley hadalkiisa daa, habeen iyo dharaaba waa isla hadli jireen. habeenkii hadday waqti qabsadaan moobil oo isla hadlayaan may ogaan jirin waqtigii ay maalinta gaadhay. haddii ay maalin sidoo kale isla hadlayaanna xilli uu gabal ku dhacay may ogaan jirin. sidaan kuu sheegay waxaa la kala maqnaan jiray xilligaa wax la soo cunayo. waxaa timi maalin maalmaha ka mid inay inantii u soo baxdo fiise baa u soo baxay. inankii aad buu u farxay, waayo imika waxa uu rajaynayay in agtiisa iman doonto.